بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Cantar Sayid Xuseen waxaan ka tirsanaa xarunta Baaf ee magaalada Muqdisho waxaan nagala soo xiriirtaa taleefanka shaashada hortaada ka muuqdo waxaan soo bilownay barnaamijkii What 2016 cashirka hore xoogaa yar hordhac ayaan sameeyay cashirkan waxaan rabaa marka si toos ah u gala barnaamijkan ka hadalkiisa haddaba barnaamijka markaas uu kicisid qaabkan ayuu u yaalaa qaybta sare hadda fiirisid waxa loo yaqaanaa title bar-ka haddaba title bar-ka waxaa ku yaalo dokumentigan inta aanan la save garaynin wuxuu yaqaanaa document number 1 ayuu yaqaanaa haddaba markii la save garay kadib waxa ka soo bixi doona magaciisa marka waxaan bar doonaa insha Allah casharka soo socdo sidii aan documentiga u save garay lahayn oo aan u keedin lahayn sidaas lamada wuxuu raacsiinayaa برنامجka isticmaaleyna magaciisa hadii uu Word yahay Word ayuu raacsinaya hadii uu Excel yahay Excel ayuu raacsinaya hadii uu PowerPoint hala amba Access oo hala magaciisa ayuu raacsinaya si loo garto daaqadan furan in ay waxa ay tahay barnaamijka ay tahay waxaan ka bilaabi doonaa dhinaca bidixda waxa loo yaqaanaa Quick Access Toolbar waa daaqad amba meel si degdeg ah u gali kartid hadii aad u baahan tahay inaad isticmaashid amara mar walba aad isticmaashid meesha marka amara yar oo kooban ayaa ku diyaarsan kuwa kalena waa lagu dari karaa marka qaybta dambe cashirka ayaan si faahfaahsan ugu sharaxi doonaa hadii la yiraahdo waana ku soo noqon doonaa dhinacan kale waxa ku yaal marka hoos u dhigidii wax yar isku celintii iyo waliba wax loo yaqaan xirida amba inaan warqadan dhan aan xirno sidaas lamada meesha waxa ku yaal fanax yar fanaxaas marka amara badan ayaa ku jiro hadii aan dhahno marka qari wuxuu qarinayaa ribanka iyo dhammaan wixii meesha ku jiray sidaas lamada hadii aan dhahno amba hal mar gujino oo aan dhahno kaliya waxaana tustaa tabiska dabcan wuxuu noqonayaa kuwan ayuu noqon doonaa hadii la yiraahdo sidaas lamada hadii aan dhahno tus tabiska iyo amarada guud ku jiro dhamaantood ayuu wada tusaya Office 2007 iyo wixii ka dambeeyay shirkadda Microsoft waxay bilowday inay isticmaasho nidaam loo yaqaan ribbon inta wixii ka horeeyay waxay isticmaali jireen menu wax la lahayo haddaba ribbonka wuxuu noqonayaa marka qaybtan gudida ku jira ayuu noqonayaa intaan oo waxa la isku yiraahdaa ribbonka wuxuu leeyahay tabiska wuxuu noqonayaa marka meelaha aad gujinaysid isla markaasna aad gudihiisa galaysid haddaba tab walba marka ku dhifatid calool ayaa furmayso calooshaas ayaa waxa loo yaqaanaa ribbonka waxay u soo habeeyeen group inta wuxuu noqonayaa clipboard inta wuxuu noqonayaa font group inta wuxuu noqonayaa paragraph group inta wuxuu noqonayaa stylus inta wuxuu noqonayaa editing group walba waxa ku jira icon amba amara ayaa ku jira kuwaas ayaa waxay noqonaysaa marka kuwa isticmaalaysa oo wixii isku eg oo isku hawl dhow qabanaya amba hawl isku wada mid ah amba isku dhow qabanayo hal group ayay ka dhigeen hal meel ayay ku soo aruuriyeen dhinacan hadda fiirsid waxa inoogu yaalo wax loo yaqaano scroll barki midkan wuxuu noqonayaa joog dabcan jifna wuu jirayaa hadii aan view-ga aan wareejino amba muuqaalka aan wareejino qaybta sare waxa ku yaal mastarad dabcan Word-ka kaliya ayaa leh mastaradan waxayna noqonaysaa meesha cabirka laga sameeyay hadii aan qaybtan kale u soo gudubno meesha waxa ku yaal marka zooming wuxuu noqonayaa in aad muuqaalka soo dhaweysid iyo in aad muuqaalka iska fogeysid normally 100% ayuu default uu ku yahay daaqada marka furtid sidaas ay noqonaysaa intaan waxay noqonaysaa xagga aragtida ay noqonaysaa oo read mode-ka kaas ay noqonayaa print layout-ka waa kan caadiga hadda aan isticmaalaynay dabcan waxay noqonaysaa marka qaabkaas ay wakaanaya kan waxa loo yaqaan status bar wuxuu ku sheegayaa inta page uu ka kooban yahay documentigan iyo inta erey ee ku qoran ayuu si caadi ah ayuu kuugu sheegayaa haddaba hadii aan kula soo laabto Quick Access Toolbar secretary magaciisa waa daaqad si degdeg ah u gali kartid hadii aad u baahan tahay inaad isticmaashid amara kooban amba amara gaar ah hadii aan marka meeshaas yar gujiyo hadda wuxuu ka muuqanayaa ribbonka korkiisa waxaan dhigi karaa show below the ribbonka hoostiisa ayaan ka muuji karaa sidaas la midana waxaan ku celi karaa isla meeshiisa amarada meesha ku jiro qaar kamid ah hadii aan uga baahanahay inaan meeshaas geeyo amba aan si aad ah u isticmaalo waa ku dari karaa oo Quick Access Toolbar-ka ayaan ku dari karaa amarkan wuxuu noqonayaa font color waxaan loogu talagalay farta in lagu kalareeyo right click hadii aan dhaho waxaan dhigi karaa add to Quick Access Toolbar ku dar ayaan dhigi karaa hal mar hadii aan gujiyo si toos ah ayuu ugu darayaa marka qoraali wax sameeyo hal mar ayaan gujinayaa uma baahnaanahay marka in aan daaqadan home-ka amba tabkan home-ka mar walba aan ku soo laabto si aan amarkaas aan
qaato amba aan farteeda aan u naqshadeeyo kalarka aan uga bedelo. haddii aadan u baahnayn right click ayaa leedahay, intaa wax ka dambeeya remove ayaa taabanaysaa, si toos ayuu uga saarayaa. meeshaan amara ayaa ku jiro, amarada aad is leedahay waad isticmaali kartaa. haddii uusan meeshaan ku jirin waxaa samayn kartaa marka inaad kuwa kale aad kusoo dirtid ayaa samayn kartaa adoo imaanaya wax loo yaqaano moro commandskaas ku dhifanayo. popular wuxuu noqonayaa inta ugu caansan oo aadka loo isticmaalo. sidaas lamida waxaa jira all commands, dhammaan waxa amara uu ku jiro waadka ayuu hal mar kusoo qabanayaa. amaradan midka aa is leedahay waa isticmaali kartaa amba okay ayuu ku yahay waa u baahan tahay ayaa ka raadinaysa adoo scroll barkan jiijiidayo, kabacdina si caadi ayaa u isticmaalaysaa. tusaale ahaan haddii aan isticmaalo print preview-gan oo aan rabnay inaan meeshaan kusoo darno, waxaan leenahay add, si toos ayuu ugu soo darayaa. meeshaan ayayna noqonaysaa meesha quick access toolbarka oo ku aruursanaya amarada ku jiro. hadda intaan amar dabcan waa kuwan. waxaa samayn kartaa inaad kala kormarisid oo waxaa isticmaali kartaa badhankaas kormarin, wuxuu keenayaa xagga sare, marka xagga sare ayaad ka heli kartaa. sidaas lamadana hoostiisa waa kusoo celi kartaa. haddii aan redoga hortiisa aan geeyo, andowna gadaashiisa aan dhigo, intaa wax ka dambeeya okay aan leedahay, wuxuu kasoo muuqanayaa redo iyo andow dhexdooda ayuu kasoo muuqanayaa. hadhow haddii aan hal mar gujiyo, si toos ayuu amarkaas u shaqeynayaa oo wuxuu noqonayaa print previewga iyo printiga oo iswato. wixii ka horeeyey 7ka laba amar ayuu kala ahay, laakiin tankii wixii ka dambeeyey wuxuu sameeyey marka inay hal daaqad ay ka wada dhigaan. waana ka hadli doonaa haddii la yiraahdo waqtiga aan printiga aan ka hadlaya. maanta insha allah taala cashirkan intaas ayaan ku hakanaynaa. intaa cashirka cashir dhammeeda aan ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.